abaaraha heer gobolkaasi Gabiley ayaa maanta deeq lacageed oo dhan 320 oo doolarka Mareykanka lagu wareejiyay. Lacagta deeqda soo kala direen qurba jooga reer Gabiley ku kala nool daafaha dunida oo loogu talagalay dadka abaaruhu halakeeyeen ee deegaanadan hoos yimaada gobolka Gabiley. Halkii deeqda lacagta lagu kala wareejinayo goobjoogka maayirka magaalada Gabiley Mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi, warasaabka gobolka Gabiley Xamse Maxamed Cabdilaahi iyo qaar ka mid ah xubnaha guddida abaaraha heer gobolkani Gabiley. Waxaana mas'uuliyiinta halka ka hadashay hadaladoodii kamid ah. waxaynu ka guddoonay deeq lacageed oo qadarkeedu yahay 3,576 doolar dad muxsiniin ah oo walaalaheen ah oo dadka qurba joogga ah. deeqdu waxayna soo gaarsiiyay Sultan Ibrahim Jaamac Samatar 15,000 oo doolar oo soo direen jaaliyada reer Gabiley ee dawladuhu ay soo direen. sultaanka ayna soo gaarsiiyay aad iyo aad baan sultaanka ugu mahadnaqaynaa. waxa weeyaan waa salaadiintii koob uu ka yahay sultaan. Haddii abaaraha gobolkuna dawli way taagan tahay, Ilaahay nimcada uu noo shubay, laakiin reeqdi abaarta taagan oo gaajadii xoolaha iyo tii dadkuba way taagantay. waxa inta inoo dheer roobkii iyo dadkii u dhimanayaan, dadkiina u dhimanayaan, xoolihiina u dhimanayaan. imika albaabka markaan soo gelayay odayaal reer Gabiley baan kula kulmay oo qoys hal mar ay 7 neef oo loo ka wada dhinteen arrintooda u socda. meel kasta dhibtaas taagan waxa meesha taalo kale gudoomiyaha gobolka Gabiley oo ay fadhiyaan guddigii taakuleynta abaaraha gobolka Gabiley. waxaan ku wareejinayaa lacag dhan 15,000 oo doolar oo ay soo gaarsiiyeen jaaliyada Gabiley deegaanka Gabiley ka tirsan ee mas'uulka ka ahay, taas oo ay u soo direen xagga gobolka jooga. aanay garteen inaan ku wareejiyo guddida taakuleynta abaaraha ee gobolka Gabiley si ay ugu dhamaystiraan wixii aanay gaarin ama raashinkuna gaarin aanay soo wakiisheen. ama saaka ayaan ku wareejinayaa guddidii oo gudoomiye u yahay gudoomiyaha gobolku. ما بدنا ومحطناكم إلهنا سبحانه وتعالى أمهد علينا إنك لقيت المسلمين أبارتينا إنك سويت بيجي ورفض بدنا أيدينا وقعنا شوي ثم وحنا نقوم محد علينا إن تذكر ولا له ذا تباريسا سوت تبي وحصل ديرنا أديات بعد ما سنتي مولانا هاي وحنصير خاصة وقوم محد علينا سلطان إبراهيم أو كم سلطان تواوي أول أوران كنا بهذا الجبل كوتشوجو وحبوا كسو كردين كرا سلطان كأديات بنو محد علينا. حولنا هذا مانتين تطلع صبحي إلهي سبحانه وتعالى هلك صبح حسين وخير ما يبدلوا صدق أبارها والسلطان هو وإحنا سوق جالسين وحاجة صلاة ما تشيلوا تا أديك نمبر 1. ولد علي إبراهيم الكعسة ورباهين تعالمي جيس بي سي قبل كجبل.